السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامتي وعن أو wanaagsan dhammaan daawadayaal dhageystayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halka aad nagala socotaan oo warbaahinta halsheeg page-ka aan ku leenahay YouTube-ka dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno cabashada iyo gadoodka ciidamada qaranka Soomaaliya iyo waliba farcilinta iyo ka hadalka mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka hadleen maxay ka yiraahdeen ma dhabba in dawlado badan oo ka tirsan caalamka ay dawladda Soomaaliya dhowr bilood ka hor ay ka jirteen deeqihii ay sii jireen dhanka saanada iyo mushaaraadka ciidanka qaranka ma jirtaa saameyn ku aadan dhankaasi isla markaana maxay tahay mowqifka ku aadan go'aan qaadashada iyo qaabkii dawladda Soomaaliya ay mushaar ku sii lahayd ciidamada qaranka Soomaaliya barnaamijkaas ayaan caawa ku baaqin doonaa barnaamijkeena isla markaana barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa hadallo dhawaan ay jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaabkii ay uga hadleen gadoodka ciidanka qaranka Soomaaliya barnaamijku waxa idin soo saaray anigoo ah Mucaawiye halka aad kala socotaan waa halsheeg ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena sida aynu wada ognahay dhageystayaal dhawaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaybta 12 Abriil ay isaga soo baxeen deegaanka Dhanaane oo ka tirsan Shabeellada Hoose isla markaana ay sheegeen inay ka cabanayaan mushaar la'aan soo wajahday ilaa dhowr bilood sidoo kale waxaa xigay maalmo kadib ciidamo aad u fara badan oo maalinba maalinta ka dambeysay ku soo qulqulay degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe haddaba maxaa ka jira gadoodka ciidanka qaranka Soomaaliya ciidamadii ugu badnaa abid ayaa soo gaaray deegaamada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kuwa oo sheegay sida ay warbaahinta u sheegeen inay ka cabanayaan mushaar la'aan ilaa iyo muddo 4 bilood ah qaar ka tirsan hogaamiyaasha dawladda federaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka Indhaqarshe ayaa si isku mid ah waxa ay uga hadleen arrintaasi iyagoona sheegay in diiwaangelin ay socoto intaasina ciidamada gadoodsanna ay yihiin kuwa aan wali la diiwaangelin isla markaana sidaas uu mushaarka uga maqan yahay hase yeeshee qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa iyagu sheegay iyo taliyayaashooda sidoo kale saraakiil ku sugan isla goobtaasi ayaa sheegeen in ciidamadaasi gadoodsan ay dhammaantood diiwaangashan yihiin isla markaana laga qaaday fara iyo indho si loo tiro koobo diiwaankana loo geliyo sidaa daraaddeedna aan weli wax mushaar ah la siinin iyagoo weliba la tiro koobay mar hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan wafdi u diray heer wasiiro iyo xildhibaano isugu jira iyo taliyaal ciidamadii gadoodka ku soo sameeyay degmada Balcad oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe wasiiradii iyo waliba wafdigii ayaa la kulmay saraakiisha ugu sarreeyay ee hogaaminayay ciidamada gadoodka soo sameeyay sida daradeed warbixino ay halkaas u soo jeediyeen oo dheer kadib taliyaasha iyo waliba ciidamada gadoodsan ayaa waxa ay soo jeediyeen arrinta kaliya oo ay ku qancayaan isla markaana ay ugu laabanayaan furmihii dagaalka oo ay soo baneeyeen in ay tahay in hadal ay ku qancaan ay ka maqlaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kaliya isla markaana marnaba aysan aqbali karin hadal ka soo yaray ruux kale mas'uul walba uu ahaado sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhawaan ka hadlayay xaflad uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu carabka ku dhuftay isla markaana uu ka dhawaajiyay in ciidamada lagu dadaalayo qorshahoodiina loogu talagalay lana siin doono mushaarkooda isla markaana ay tahay xuquuq ay ku leeyihiin qaranka Xasan Cali Khayre ayaa mar uu ka hadlayay xafladaasi uu soo qaban qaabiyay gobolka Banaadir waxa uu sheegay in wadamo badan oo ka tirsan reer galbeedka sida dalka Ingiriiska, Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga ay dhawaan ka jarteen sanadihii iyo waliba lacagihii ay ugu deeqi jireen Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladeeda isla markaana ku taa oo ahayd tii lagu taakuleen jiray ciidamada qaranka isla markaana saameyn ay ku yeelatay hase yeeshee Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin isla markaana ay ku mashquulsan yihiin sidii lacagaha iyo dakhliga dalka ka soo xarooda ay ugu haqabtiri lahaayeen uguna dhisi lahaayeen ciidanka qaranka taa oo qorshaheedu uu socdo sidoo kale Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu xafladaasi ka sheegay in uusan marnaba aqbali doonin isla markaana dawladda Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin
in ciidamada sidii muddo ka hor mushaaraadkooda loogu dhiibo saraakiisha iyo taliyayaasha hogaamiya, isla markaana uu sheegay in askari walba akoonkiisa ama koontadiisa si toos ah xarunta wasaaradda maaliyadda looga diri doono, isla markaana halkaasi ay ugu dhici doonto. hadalkan uu jeediyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa markii si loo eego noqonaya hadal xaqiiqo ah kadib markii dowladda Mareykanka 2 bilood ka hor ay ku dhawaaqday inay jaratay saanadii iyo waliba dhaqaalihii ay ugu deeqi jirtay ciidamada qaranka Soomaaliya. lama oga saameynta ay arrintan reebi doonto. hadalkan kadib ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ciidamadii gadoodka sameeyay wax ay ku aamuseen deegaanka Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. lama oga xaaladdu waxay sii ahaan doonto, hase yeeshee waxaa la filayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay culeysyada ka soo wajahay wadamadaasi jirtay deeqihii ay siin jireen dalka inay ku dabarto ama ku xaliso arrimo kale. sidaa daraaddeed ciidamada ayaa waxa ay iyaguna doonayaan hadal ay ku qancaan isla markaana uga yimaada mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. dhegeystayaal, waxaa sidoo kale jiro hadallo hoose oo si gaar ah inoo soo gaaraya taa oo sheegaysa in dhaqaale darri baahsan ay haysato dowladda federaalka Soomaaliya, taa oo keentay in ciidamada mushaarkooda qayb ka mid la waayo, isla markaana dowladdu ay wado dadaal ay uga samata baxayso isla markaana ay ku ciribtirayso dhibaatooyinkaasi jiro. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isna booqday xeryo ka mid ah xeryaha ciidamada qaranka oo ku yaala magaalada Muqdisho, sida xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee qaybta Dayniile iyo sidoo kale xerada General Gordon oo ku taala degmada Hodan. madaxweynaha ayaa ciidamada ku bogaadiyay uguna laab qaboojiyay inay iska dulqaataan inta yar ee ay socoto dadaalka lagu ciribtirayo dhaqaale la'aanta ciidamada haysata, isla markaana uu ugu baaqay inay sii wadaan dadaaladooda, furmahoodana ay ku laabtaan, amnigana mar walba ay ka shaqeeyaan oo aysan niyad jabin, isla markaana mushaar bixinta dowladdu ay tahay mid waajibaad qaran oo ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa lagu xusuustaa markii uu u soo tartamayay doorashada madaxweynaha Soomaaliya inuu ku celcelin jiray inuu bixin doono isla markaana xoogga uu saarin doono bixinta mushaaraadka ciidamada qaranka, taa uu ku tilmaamay tii ugu dhabarka jabnayd ee Soomaaliya abid soo martay. dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa intaas ayaan kusoo afmeerinaa. barnaamijku waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Mucaawiye. halka aad kala socoteen waa Hal Sheeg page-ka aan ku leenahay YouTube-ka. tan iyo kulankeena xiga barnaamij caynkan oo kale intii aan isku arki doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.